بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم isu soo noqod wanaagsan ardayay waa mar kale iyo chapterkeeni afaraad ee genetics-ka gaar ahaan waxaynu baranaynaa cashirkiisa lixaad ee ah mutation dabcan mutation waa dhalan dooris ama dhalan rogis in noolaha dhir ama xayawaan ama bini aadam wuxuu doona ha ahaadee uu ka dhaco isbedel degdeg ah aynu baranno haddaba waa maxay mutation muxuu yahay aynu aad u fiirino what is mutation waa maxay mutation dhalandoorisku muxuu yahay mutation dhalandoorisku is a sudden change means a spontaneous change waa isbedel degdega kaasoo wax ka bedela geniska waxaan soo sheegnay in uu yahay genisku halbeega asaasiga ee hiddaha waa heredity materialka jiinkii ayaa waxaa ku dhacaya isbedel degdega or ama chromosome ama isbedelku wuxuu ku dhacayaa chromosomyada haddaba maxaan fahanay mutationku waa isbedel degdega kaasoo ku dhaca jiinka hiddasidaha iyo chromosomyada waa yahay intaas hadday tahay oo isbedelkaasi muxuu noqonayaa maxaa sababaya mutations are caused by mutationku waxaa sababa substance walxo sheeyaalo kale la yiraahdo mutagenes waxyaabaha sababa waxaa la yiraahdaa mutagenes haddaba waa maxay mutagene what are mutagenes mutagenesku an external agent waa wakiil dibadda kaga imaanayo waa shay dibadda kaga imaanayo that increase kaasoo ziyaadinayo the rate of mutation xaddiga xawaaraha uu ku dhacayo dhalandooriska waa sheeyaalaha mas-uulka ka ah ee caawinaya in uu noolaha ku dhaco dhalandooris oo isbedel ku yimaado waxyaabaha agentiga wakiilka ka ah ee arrintaasi ziyaadiyo inuu xawaaraha ku dhaco ayaa la yidhaahdaa mutagenes waa yahay individualiska ashqaasta dadka xanuunka mutationka uu ku dhacay uu ku samaysmay iyaguna maxaa loo yaqaanaa individuals showing these changes isbedelada that appears oo ka soo muuqanaya known as waxaa loo yaqaanaa mutantes waxaa loo yaqaanaa mutantes kuwii uu ku dhacay mutationka waayahay tusaale waxyaabaha mutageneska ee sababa mutationku maxay yihiin waxaa ka mid a kow irradiationisku maxaan ka wadnaa kaaha oo maxaa ka mid ah x-ray kaaha raajada dadka la saaro gaar ahaan markii jabniin iyo wax la mida la baarayo waxaa kaloo ka mid ah ultraviolet rays kaaha cinab sare waxaa la yidhaahdo al-ashica fowq albasbajiya kaaha cinabka sare oo iyaguna dabcan qoraxda ka laga soo daayo and other radioactive radiations iyo sidoo kale radioactive radiationska ay ka mid yihiin gamma beta iyo alpha intaasi waxay sababaan radiationskaasi ay mutagene waayo oo waa agenti fududeynayo in uu dhaco mutation hadday kaahaasi x-rayga ultraviolet rayska iyo alpha iyo beta iyo gamma inta waxay ka mid yihiin shayaalaha example-ku noqonayo mutageneska maxaa kaloo ka mid ah inuu mutagene dhaco ma intaan irradiationka keliya maya as well as chemicals waxaa ka qayb qaato kiimikooyin ka qayb qaato waxaa ka mid ah formaldehyde waxaa ka mid ah colchicine kiimikooyinkan dabcan iyaguna marka la adeegsado jirka bini aadamka loo adeegsado waxay keenaan inuu mutation oo ay sababaan haddaba su-aal is weydiinaynaa mutationku ma helpful oo beneficial adee beneficial ma faa'iiday leeyihiin oo markay ku dhacaan bini aadamka ama xayawaanka ama geedka or ama harmful waa kuwo dhibaateeya oo noolaha dhib u keena su-aashaas ayaan isku dayana inaan ka jawaabno waxaan dhihi karnaa mar inay yihiin mutations can be helpful waxay noqonayaan kuwo faa'iido leh oo caawinaya noolaha goorma if it benefits markuu ka faa'iideysanayo the organism's ability awoodda nooluhu to survive uu ku badbaadi karo hadday siiso nooluhu badbaado uu mutation intuu ku dhaco mutationkaasna noolaha ay u siyaadisa qiimo waxaan dhahaynaa waa helpful
and reproduction tarankay u siyaadiso labadaas waxaan ka eegaynaa hadday nooluhu qiime ay ku siyaadinayso mutationka sida geedka la yiraahdo tusaale gobka ee miraha ama geedka gobka ee lafta leh marka aynu cunayno laftaasi dhibaato inoo keenaysaa laakiin mutation markay ku dhacdo lafta laga waayo oo geed mirtiisa bilaa lafa cunaysa ma faa'iido u keento mise khasaaro faa'iido sidaa daraadeed mutationku waxaan dhahaynaa waa helpful waa mid faa'iido leh tusaalaha meesha noogu qoran scorpion dibqalooca leh extra stage waxaa la yidhahdaa hangarka ee qaroofka uu dabada dambe ku leeyahay tusaale sawirkaasi waxaa inooga muuqdo scorpion leh labo seen laba dib labadaasi waxay u qabanayaan inuu isku difaaco oo awood wuxuu yeelanayaa meeshuu hal isku difaacayay wuxuu yeeshay inuu isku difaaci karo laba seen taasi waxbay u siyaadisay faa'iido mise khasaaro faa'iido ayay u siyaadisay sidaas daraadeed mutationku markaani waxay noqonaysaa helpful mid faa'iido leh mutationku mar qaarkood waxay noqontaa harmful mid dhibaato u keento noolaha oo qiimihiisii hoos u rido ama survivalkiisii noloshiisa u diido maxaa ka mid ah if they reduce markay yareeyaan organisms chance noolaha fursadiisa for survival uu ku badbaadayo and reproduction such as sida albino frog rah ee ka soo muuqatay sifada ay idin sheegi doonaa cashirkeenan dhexdiisa ee ah albinismka la yiraahdo dadka ama xayawaanka midabkiisu uu noqonayo colorless ama cadaan uu wada noqonayo gebigiis oo midabka skin colorku isbedelayo oo melaninti maadada mas'uulka ka ah normal skin color aan lahaanin tusaale sawirkaasi eeg raha ayaa ka muuqdo rahaasi wuxuu isku dayayaa inuu camouflage oo isku qariyo deegaanka uu ku nool yahay uma suurtageli karta unfortunately sababtoo ah waa albino waa cadaan uu ka soo muuqanaya geedka rahani mutationka ku dhacay miyay helpful mise harmful waa harmful sababtoo ah survivalkiisa ayaa u diiday waayahay mutationku maxaa loo qaybiyaa mutationku waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah chromosomal mutation iyo gene mutation labadaas nooc oo waa sidee mutationka marka ay ka dhacdo chromosomka waxa loo yaqaan chromosomal mutation marka ay gene ka dhacdo waxa loo yaqaan gene mutation chromosomal mutation waa maxay aynu qeexno changes waa isbedelo daad kuwaasoo ka dhacaan in the structure of the chromosome structure-kiisa soo u dhisnaa ayaa qayb go'i karto deletion ama qayb duplication badan kartaa ama qayb isrogi kartaa structure-ku markuu dhici karaa or ama number tirada oo waa sidee chromosome-ka aadamuhu waa 46 chromosome wuxuu heli karaa qofka bini aadamka chromosome dheeri ah 47 taasina waxay keenaysaa chromosomal mutation qofkaasi waxaa ku dhacayo xanuun la yiraahdo Down syndrome ayna arki doono gene mutation isaguna waa maxay waa changes isbedelo ku dhacaya usually in the chemical structure in nature qaabka chemical dabiici ahaan ayaa gene-ka isbedelaya oo sida hadda aan sheegayna albinism raha iyo kale maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay gene mutation waaye tusaale maxaa ka mid ah marka chromosome mutation haddaa tiri waa structure-ka iyo qaab dhismeedka iyo numberka isbedelayo waxaa ka mid ah inay dhacdo deletion oo waa sidee waa marka piece of chromosome gobol ka mid ah chromosomada is cut off la jaro goorma during cell division markuu dhacay qaybsan unugeedka ayaa qayb ka mid ah chromosomki ayaa la jaraya arrintaasina waa maxay due to breakage kala jabid ku dhacday or ama piece of chromosome is lost gobol ka mid ah chromosomka la yeelawaanaya haddii chromosomkii qayb ka mid ah go'do maxaa dhacay mutation aa dhacay gaar ahaan chromosomal mutation gaar ahaan deletion oo sidee si qayb ka mid ah chromosomka ayaa go'day aynu aragna muuqaalkaasi maxaa dhacaya chromosomka aan ka soo qaadana 1 2 3 4 5 maxaa ku dhacay 4 iyo 5 aad u fiiri cut haye markii hore muxuu ahaa aad si fiican u fiiri before afterna suu noqday half uu yaraaday aad u fiiri mar kale aan kugu celinaya maxaa ku dhacayo piece of chromosome is cut off gobol ka mid ah chromosomka waa la jaray gaar ahaan number 5 iyo number 6 maxaa ku dhacay chromosomka marka before uu dheeraa afterna waxaa ku dhacay waa u gaabtay arrintaasna waxay keenaysaa mutation si fiican ula soco aad u fiiri yes chromosomka waxaa ku dhacay deletion okay waxaa dhici karto xaalad labaad oo chromosomal mutation la yiraahdo inversion oo waa sidee
كروموسومكي أيا قيب كمذا سيكونسيكي سو هستي أيا وحي سرقيسا هل مر حقل بقولي 60 دقيقة normal sequencing genes isku haysteen ayaa qayb kamid ah isrogaysa it occurs waxay dhacdaa when the middle portion of the chromosome ka qaybta dhexe ee chromosome ka breaks ee gabo kadibna antanis ay isrogto the angle of 180 degree xagal 180 oo sidaas inay isrogto aynu fiirino bal qaabka isrogayso aad u eeg muuqaalkaas waa isrogay chromosome number 1 2 3 4 iyo 5 waxa ku dhacay iyo 6 inay isrogeen halkaas waxaan iraahnaa habkaasi waxaan irahnaa inversion si fiican u fiiri chromosome-ka sidaas ayuu ahaa uu taxnaa maxaa ku dhacay 5 4 5 6 way isrogeen oo xagal maxay isrogeen xagal 180 habkaanina markay dhacdo chromosome-ki de wuu isbedelayaa waxa imaanaya xaalad mutation dhalandooris waayahay hadaa mar kale kugu celiyo si aad aad u daawatid inversion ayaa dhacay markaani isrogid si fiican oo aragnaa chromosome ee sequence-ga gene-ka 4 5 6 way isrogeen maxaa soo baxay inuu noqdo mid kala gedisan xaaladda saddexaad ee keeni kara waxa kamid ah chromosomal mutation duplication waxaan dhiri deletion in qayb la tiro inversion in la inuu isrogo sequence of gene markaani waa gene sequence-ga in la soo celceliyo oo waa maxay waxa dhacayo chromosome-ka in la soo celceliyo qayb genes kamid ah 3 4 5 6 markii la joogo maxaa dhacay qayb kale ayaa soo gashay aad u fiiri sawirkaas si fiican u fiiri maxaa dhacay in chromosome-ka duplication uu dhaco aad u eeg maxaa dhacay fiiri aad u fiiri 4 5 6 7 mar kale la soo celiyo 1 2 3 4 5 wuxuu ahaa chromosome-ka caadiga sida caadiga nooga 1 2 3 4 5 6 7 8 iska ahaa kan kalena maxaa ku dhacay duplication oo markii 4 la dhahay 5 mar kale la soo celiyay chromosome-ku wuxuu noqday mid double 3 4 5 haddana 4 5 6 waaya aan ka bogano si fiican uga bogano xaaladaasi markay dhacdana maxaa dhacay duplication double inuu noqdo xaaladda saddexaad ee afraad ee dhici karto waxa kamid ah translocation translocation waa maxay waa qayb chromosome-ka kamida attachment of a portion of chromosome gobol kamida chromosome-ka uu la kulmo uu ku dhago non homologous chromosome waxaan soo baranay homologous chromosomeska islaha is qaadan karo laba chromosome aan islahayn ayaa isu soo go'aya laba gobol kamida isqabsanayaan taasina waxaa la yiraahdaa translocation goormay dhacdaa marka gobol kamida chromosome-ka uu go'o anjoinis uu ku xirmo another mid kale sawirkaas aad u fiiri chromosome-kaas aan u yeelnay guduudka iyo midka buluuga ah waxaa dhacay gobol kamida chromosome-ka buluuga ayaa go'ay wuxuu ku gobol kamida guduudkana uu soo go'ay waa is soo dabamareen maxaa sameysmay translocation xaaladii marka sideedii ahaanaysa maya maxaa imaaday mutation imaatay oo maxaa isku dhigay laba chromosome aan islahayn aad u daawo waayahay si fiican haddaan uga bogano translocation-ku waa in laba chromosome oo kala duwan tusaale chromosomeska buluuga noo ah iyo kuwa redka isbeddelka ay sameeyeen waayahay ugu dambeyn xaaladda waxaa jirta la yidhaha non dissection kani waa qayb ka mid ah chromosomal mutation oo waxaa failure ku dhacaya pair of chromosomes ayaa waxay sameynayaan suurtagal u noqon weynaysaa inay kala baxaan separation markii aan ka hadlaynay qaybsan unugeedka ee loo yaqaan meiosis-ka ayaa waxaa la rabay inay kala baxaan awood wax u yeelan waa inay kala baxaan arrintaasina waxay sababaysaa marka in too many chromosomes ku bataan numberkooda ama ay yaraadaan xaaladaasi markay bataan ama markay yaraadaan waxaa loo yaqaanaa non dissection ayadana maxay ku dhacdaa waxaa kaco number of human disease ayaa ka dhasha xanuuno badan oo bini'aadamka ku dhaco oo ay ka mid yihiin xanuunkaasi ilmahaasi yar waxaa ka muuqdo xanuunka la yidhahdo Down syndrome astaamaha waxa lagu yaqaan ilmahaasi wadnahooda waa malfunction si fiican uma shaqeeyo carabkoodu waa u weyn yahay farahoodu waa ay gaagaaban yihiin muuqaalka wajigooduna meel kasta joogan way isku eg yihiin waxaa ku dhacay extra chromosome ayaa ku soo kordhay oo la yiraahdo 47 46 ayaa aadamaha loo yahay 47 carruurtaasi marka waxaa ku dhacay xanuunka la yiraahdo Down syndrome waayahay waxaa kaloo ka mid ah Klinefelter syndrome astaantani waxay ka soo muuqataa iyaduna qofka in uu yeesho marka meelka uu ahaa XY waxaa ku soo kordhayo 2X iyo Y waa meel balse leh astaamaha haweenka qayb ka mid ah sida in ay way soo baxaani
xubnahaas brisiska oo ka mid ah inay ka soo muuqdaan inuu yeesho ayaa macquul ayaa laga arkayaa Klippel-Trenaunay waxa ka mid ah Turner syndrome mid ka mid ah inuu ka baxo astaamahaas waxay keenaysaa xanuunadani marka waxay ka dhasheen non dissection haddaba gene mutation chromosome mutation haddaan barana gene mutation isagana waa maxay waxaan niri waa janji ka dhacaya chemical nature-ka gene-ka uu leeyahay sida chemical uu ka samaysan yahay tusaale genetic disorders-ka ay keento waxaa ka mid ah gene mutation-ka include waxaa ka mid ah albinism xaaladda dadka kulligood wada jirkooda wada cadaanka ah timahoodu ay white ka yihiin indhahooda binkishka ay yihiin iyagoo dhan maqaarkooda ma ahan xanuunka baraska la yiraahdo barastu qofka waxay uga tagaysaa barbar yaro madow halka albinismku uu yahay dhammaan qofka korkiisa wada cad waa magaalooyinkeena Soomaaliya oo laga helay wadamo badan waxa ka mid ah sickle cell anemia marka ay red blood cells-ka ay yeeshaan muuqaalka bisha oo kale sickle cell anemia la yiraahdaa oo iyaguna waa genetic disorder waxa sababa gene mutation ku dhacay waxaa kaloo ka mid ah color blindness aan hore soo baranay oo ah midabada qaar inuu qofka arki waayo kala sooci waayo red iyo green ilmaha yar markii la iskuulka waxa uu xiranaysaa shaati green ah red uu iska qaadanaya mana yaqaan ma garan karo waa color blindness oo soo aragnay waxa ka mid ah hemophilia qofka oo aanan istaagin dhiiga aan xinjiroobin oo hore soo baranay ayadana kuwaani waxa sababay gene mutation haddaan ku hormarno albinism xaaladda la yiraahdo albinism waa maxay waa marka uu jirka qofka waa xaalad daad akaris dhacda goorma when the body fails marka uu jirka awood u yeelan waayo to produce inuu soo saaro pigment midabka la yiraahdo melaninku waa waxa soo saaraan ugeey la yiraahdo melanocytes waxayna mas'uul ka yihiin in jirkeena normal colorkeena uu yeesho haddaan nahay madowgeena noo ilaaliyo haddaan nahay dad dhiig furan ama cadaanku noo ilaaliyo the skin maqaarku lucas wuxuu ekaanayaa pale midab la'aan the person qofka has white hair wuxuu yeelanayaa timo cad timihiisa wada cadaanaya and pink eyes indhahuna waxay noqonayaan midabka pink oo kale xaaladaasi waxaa sababa recessive gene oo soo dhiganay genesku midna waa dominant gene midna waa recessive gene mar allaale marka soo baxo ayaa xaaladan dhici kartaa hadhow markaan ka shaqeynayno waxaan saacideynaa boxkan genotype-ka mar allaale markasta ay noo soo baxaan laba AA albinism qofkaani waxaan dhahaynaa waa normal skin maqaarkiisa wuu caafimaad qabaa hadday noo soo baxday A capital A small qofkaani wuu caafimaad qabaa waa normal balse waa carrier wuu xambaarsan yahay hadday noo soo baxday laba A oo small ah qofkaani waa albino wuxuu qabaa xanuunka albinism-ka aynu sheegnay waayahay aynu calculation intaas fiirino tusaale haddii ay isu imaadaan two heterozygous parents oo maxaan ka wadnaa heterozygous hore u soo dhiganay marka uu sidaan yahay waa homozygous waa bacrimine isku jaad ah marka uu kala duwayana waa heterozygous this one waa heterozygous haddii laba waalid aan isu keeno oo labadaba yihiin heterozygous aan cross ku sameeyno maxaa dhacaya ilmo intee probability boqolkiiba ihtimaal intee iska dhali karaan ilmo albino ah sideena noqonaysaa bal aynu eegno aad ila fiiriya waxaan hadda ku shaqeynay Punnett square oo waxaan qaadanay midna koran saarnay midna bidixdan saarnay hadda sawirka ka faa'iideyso Punnett square-ka aniguna waxaan kaga shaqeynayaa test cross oo maxay leedahay inoo soo qaad u bedel gametes oo u bedelay laba gametes oo kala saaray kana waa gametes u kala celi haye fertilization AA maxaan dhahnay AA qofka laba AA waa normal waa caafimaad qaba cunugan haye A capital A small maxaan dhahnay waa normal balse waa carrier xanuunka ayuu qabaa oo xambaarsan yahay ma qaba xanuunka waa caafimaad qaba jirkiisa waa caadi balse uu xambaarsan yahay wuxuu hayaa chance ilmihiisa uu gudbin karo boxka waxyar waxaan saxaynaa A capital A small ka waxa la soo hormarinayaa A capital ka la soo hormarinayaa aadan la socono kani waa A capital A small dominant gene kan ku hormarinaa oo ah A capital A small labadaana laba A oo small ah recessive gene-ku ilmahani waa normal labadaana waa carrier waa normal waa caafimaad qabaan laakiin waa xambaarsan yihiin kanina waa albino percentage boqolkiiba ihtimaal intay ku noqon karaa carruurtaani ee labadan waalid iska dhali karaan ilmo albino ah waa boqolkiiba 25 maxaa yeelay boqolkiiba 75 way caafimaad qabaan halka boqolkiiba 25 uu qaba si kale xisaab ahaan hore u soo baranay waa 1/4 times 100 isu qaybi waa 25 hal ku dhufo waa 25 boqolkiiba ihtimaal ilmuhu waxay ku noqon karaan kuwa xanuunka qaadayo albino sawirkaasi si fiican u eeg waa ilmahaasi midabkaasi leh waxa ku dhacay xanuunka la yiraahdo albinism qofkan waxa la dhahayaa
albino probability ay ku noqonay ilmahu this normal looking couples laba waalid waaye way caafimaad qabaan labadoodaba laakiin waa carrier way xambaarsan yihiin ayagu laakiin normal ay u muuqdaan janiska isaga dhali kara ilmo xanuunka qaba waa 5%. sickle cell anemia ayadoo maxay tahay waa disorder xaalad hemoglobinta ee dhiigga red blood cell-ka laga dhaxeeyo ku jirto proteinka ah hemoglobinka ee red blood cell-ka ayaa isbedel ku dhacaya oo isbedelkaasi waa maxay meeshii amino acid-ka sameynaysa ay ahayd glutamic acid amino acid-ka la yiraahdo glutamic acid waxaa jira 20 different amino acids ay jiraan oo proteino u kodgareeyaan glutamic acid meeshii la rabay glutamic acid instead waxaa meesha soo galayo change falanin amino acid falanin ayaa bedelayso arintaasina waxay keenaysaa in sickle shape ay yeelato waxayna noqonaysaa inay awood u yeelan waaso transportation of oxygen maxay shaqada hemoglobinta in oxygen-ka ay noo qaado sickle shape ay noqonaysaa iyo qaabka bisha ay u ekaanaysaa awoodna uma yeelanayo marka qofkaasi in oxygen qaado dadka sickle cell anemia ku dhaco almost expectation date nolontooda waqtigooda 20 sano lagu tiriyaa laakiin faa'iidada ay leeyihiin waxa waaye malaria kuma dhici karto oo resistant ay ka yihiin sawirkaas wuxuu noo muujinayaa red blood cell nadiifa oo caafimaad qabto kaana wuxuu noo muujinayaa red blood cell oo sickle shape noqotay sickle cell haddaan soo qaadano furahaasi meesha kugu qoran akhri haddaan dhahno HbA waa normal qofkani waa normal hemoglobin oo caafimaad qaba HbS haddaan dhahnana waa wuxuu qabaa hemoglobin sickle cell anemia qaba haddaba marka aynu u fiirino jadwalkaasi aad uga faa'iideyso aniguna waxaan kaaga dhigayaa habka test crosska baranti haddaan isu keenno oo labadoodaba yihiin carrier oo maxaa laga wadaa hemoglobintiisa waa carrier oo wuu caafimaad qaba HbA and HbS wuu caafimaad qabaa waalidkan laakiin waa u xambaarsan yahay dhashiisa u gudbin karaa waxaan u keenay cross gareynay mid kale oo isaguna caafimaad qabo balse carrier sida caadiga boxka aan sameeyno dhinacna male-kan saarayna kore dhinacna waxa saarayna female-ka astaanta kor waxay noo sheegaysaa calaamadaasi male tan hoose waxay noo sheegaysaa female aan isku garaacna sida caadigeed sida isku dhufashada labada marka la isku dhufto HbA iyo HbA maxaa soo baxay laba HbA qofkaasi waa maxay waa normal waa caafimaad qabaa haye haddana noo soo qaad HbA iyo HbS maxaa soo baxay HbA HbS oo maxay noqonayaan qof carrier ah sida boxkaaga muuqdo haye haddana tan hoose noo bilowd HbS soo qaadi HbA isku dhufo waxaa soo baxay HbA HbS qofkan waa carrier HbS iyo HbS qofkaasi waa sickle cell anemia ayaduna haddii lagu dhaho phenotype-ka maxay noqonayaan phenotype-ka waxay noqonayaan unaffected qof ah oo caafimaad qaba normal ah laba carrier ah iyo mid sickle cell anemia ah waxaa lagu practical application maxaa lagu dabaqaa waxaa la genetics-ka markii la dabaqayo waxaa looga faa'iideystaa blood transfusion marka dhiigga la isku shubayo oo markii qof dhiig looga baahdo dadka walaalihiisa loo raadiyaa qaraabadiisa dhow maxaa yeelay janiska iskugu dhow yihiin badan genetics-ka looga faa'iideystay waxaa kaloo looga faa'iideystay dhirta markii la hormarinayo oo la rabo dalag badan in la soo saaro hal geed in la sifo laga qaado oo laga faa'iideysto in xayawaanka la koriyo oo sac caano badan laga keeno Holland oo lo'dayna Soomaaliya dibigeena loo geeyo ee ka dhashaan xayawaan kale oo caano badan oo fiican genetic counseling qoysaska xanuunadan lagu arkay in lala taliyo si ay isaga fogaadaan inay isguursadaan waayo waxaa jaanis dhici karo inay ilmo iska dhalaan xanuunka qabo waxaa kaloo lagu dabaqaa genetic engineering oo cashirkeena xigo aan dhiganayno xiisada toddobaad ee noqon doonto cashirka toddobaad uu noqon doono exercise-kan ardayay ka soo shaqeeya oo ah qeex mutation sidoo kale laba nooc mutation ee noo tax example ka keen kala sooc waa maxay mutant iyo mutagen maxay kala yihiin labadooda kala differentiate gare horaan kugu soo sheegay saddex shay mutation ka sababana soo saar hadii ay qof normal skin oo nin caafimaad qaba maqaarkiisa u guursado haween ay qabto normal skin color ayadana maxay ilmaha iska dhalaan maxay noqonayaan janiska ilmo waxay iska dhaleen albina ayagu way caafimaad qabeen laakiin cunug albina ka soo baxay genotype-ka waalidka noo sheeg nooc aha waalid iska dhali karo ilmo ah ay ka soo bixi karaan nooc genotype-ka ah raadi haddii normal children-kaasi if one of the normal children married a girl ilmihi caafimaadka qabay normalka ah hadduu guursado gabar oo carrier ahna iyaduna waa maxay ihtimaalka ay iska dhali karaan ilmo oo ah normal aan ahayn oo carrier aan ahayn oo ah xanuunka qaba
first child will be a normal not a carrier ayuu noqonaya genotype kii phenotype ka soo saar caruurta noocaasi ah wabillahi tawfiiq